khilaaf xoogan ayaa hareeyay safaaradda Soomaaliya ee ku taala magaalada Kuala Lumpur oo ah xarunta dalka Malaysia waxaana shaqo joojin sameeyay dhammaan xubnihii ku xigay safiirka safaaradda Soomaaliya ee Malaysia. warar ay heshay warbaahinta ayaa sheegaya in shaqada ay joojiyeen Qunsul Cabdifataax xogayaha koowaad ee safaaradda, Marwo Qamar oo qaybsanaha dhanka ganacsiga ee safaaradda, Maxamed Amiin oo qaybsanaha waaxda socdaalka, Mubaarak iyo Sakariye iyo qaybsanaha dhanka waxbarashada kadib markii ay sheegeen in ay la shaqeyn waayeen safiirka Soomaaliya ee safaaradda Ambassador Mardadi. shaqaalaha safaaradda ayaa warbaahinta u sheegay in lacag xad dhaaf ah ardayda iyo muwaadiniinta kale ee Soomaaliyeed ee ku sugan dalkaas laga qaado, taas oo aysan awoodin bixinteeda, waxaana isa soo taraya walaac ay qabaan muwaadiniinta Soomaaliyeed ee ku nool dalka Malaysia. toddobaadyo ka hor booliiska dalka Malaysia ayaa gudaha u galay safaaradda Soomaaliya ee dalka Malaysia kadib markii qof u dhashay dalkaas uu sheegay in gudaha safaaradda loogu gacan qaaday, kadibna uu ku wargeliyay booliiska Malaysia, taas oo sababtay in booliiska ay gudaha u galaan safaaradda Soomaaliya ee dalkaasi. in safaaradda Soomaaliya ee Malaysia la galo waxay dhaawac ku tahay madax banaanida dalka. walina ma jirto wax war ah oo ka soo baxay dawladda Soomaaliya oo falkaasi ku aadan. xeerka Vienna ee 1961 ayaa qaba in cidna aysan gali karin safaaradda haddii uusan raali ka ahayn safiirka. si kale haddii loo dhigo, safaaradaha waa sida dalal yaryar oo ku dhex yaala dal, waxaana safiirka iyo diblomaasiyiinta ay haystaan xasaanad buuxda oo xitaa aan dambi lagu soo oogi karin. safiirka Soomaaliya ee dalka Malaysia Ambassador Mardadi waxa uu ka mid yahay dhowr safiir oo wasaaradda arrimaha dibadda Soomaaliya maalmo ka hor ugu yeertay inay si degdeg ah u yimaadaan magaalada Muqdisho si wax loogu weydiiyo shaqooyinka ay hayaan, balse safiirka ayaa wali waxa uu ku sugan yahay dalka Malaysia. dalka Malaysia waxa uu ka mid yahay dalalka muwaadiniinta Soomaaliyeed ay ku qulqulayeen sanadihii dambe halkaas oo haddii waxbarasho ay tahay iyo haddii safar kale ay tahayba ay u baxeen dad badan oo Soomaali ah.